telefishinka ee YouTube maanta waxaa sharaf weyni ah inaan ku soo boqdo hotelkiisa magaalada Muqdisho hotelka caanka ee Jazeera siyaasi rugcada waqti dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya taageerayaal badan leh dad qaarkood ra'yaan kaga soo jeeda laakiin in oday Soomaaliyeed oo hadalkiisana runtii aan aad u dhageysto siyaasi Cali Dacuun adraali ku soo dhaw wadawhay wadna mahadsan tahay adiga iyo kiifiga ما شاء الله سياسي علي داعون ساكا ورقبتان وصوغلا برهب الشدة من قف دباتي موحيدة دمان لكن رأييسة أيودي تا انت بدن علي داعون وحا أقوه رأي أنكو يجينا وحي تاي ودن كدوراشا كده حضي مدحوين عسوبة يمد مقعي سليل هذا حسن الشيخ محمود رأي أهان حاد كآمي سنتي متاقيا سنتي هاي اسبدل كودن كده بسم الله الرحمن الرحيم 15 ماي doorashadii dhacday siday doontaba ha ku dhacdee anigu waan hambaliyey mar haddaan hambaliyeeyey maantana aad su'aasha lafteedii igu soo celisay wixii ka dhacay 15 May teendada ee doorashada ahaa waan hambaliyey laakiin aniga adiga maanta madaxweynaheena waa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dalka Soomaaliya muddada xilligiisu dastuurku dhigayo wax laakiin adiga madaxweynaheena waa xasan sheekh maxamuud aniga mabadiidani mar haddaan hambalyeeyey oo ku idhi waa madaxweynihii waddanka waxaad kaga celcelisaba ma aanan garan waa madaxweynihii dalka adiga oo Soomaali ahna madaxweyne noo of course mar haddaan hambalyeeyey waa madaxweynihii laakiin si aan uga gudubno xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha adiga oo Soomaali oo dhan buu madaxweyne u yahay anaga aan ku jirno labadeed dibba Soomaali oo dhan haddii aan ku idhi subxaad inooga saartay markaan ku jirna Soomaha anaga oo dhan adigu bal isweydiin waxaad uga saaraysa Soomaali maanta waxay leedahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maasha Allah inaan ku jirno waa ka gudbaynaa doorashadan xor iyo xalaal soo uma dhicin hal qodob oo aan hore u iri baan kuugu celinaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud xubin sharaf dastuurkaana dhigay haddaad rabto waad akhriyi kartaa wuuse codeeyey mar haddii murashaxiintii la tartamaysay ay qabsan weydii waa kow mar haddii maxkamaddii sare oo fadhiday ay qaban weyday mar haddii baarlamaankii shirguddoonkiisii ay qaban waayeen mar haddii guddigii doorashadu ay qaban waayeen mar haddii aanu tii baarlamaanka aanu codayn laakiin tii madaxweynaha uu codeeyey halkaa waxa saaran question mark waan gartay laakiin su'aalan ka soo dhaxbixinaya wax farqi ama u dhaxayn lahaa haddii codka xasan sheekh aanu la helin iska dhaaf codka xasan sheekh haddii xataa la helin 20 cod wax ka badan wuxuu keenay more than 200 people oo xildhibaano ayaa u codaysay wax farqi ma keeni lahaa horta haddii aanu codeeyeen ba isaga u fiicnay oo mar walba doorashada waa heli lahaa laakiin mar hadduu codeeyey question mark waa saaran yahay waa dastuuriya laakiin faraq aad ii sheegtay dee maba keeneenba 214 buuba keenay sax kaba jartiisa 213 bay noqon lahayd laakiin jeekalkoosa codaynta uu codeeyey aanu xaqa u lahayn ayaa ah question mark okay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo ma jeceshahay madaxweynaha cusub ee asbuuca jira inuu successful noqdo waddankan horu maro nabad la helo shaqo la helo barwaaqo la helo ku taageersantahay sidaydaba anigu waxaan ahay dowladoon qabiilnadi waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed leeyahay war la shaqeeyo macna ay soo kordhinaysaa ma jirto haddii uu xasan wax xumeeyo inagoo dhan baa wax dhaba
haddii xasan wax wanaajiyana inagoo dhan baa wixii oo dhan ay inoo wanaagsay xasan wuxuu ku jiraa imtixaan imtixaankaa waa in ummadda soomaaliyeed ay kala gudubtaa oo ay la shaqaysaa waan gartay adiga iyo dad aad u fara badan ayaa waxaa la dhihi karaa anigu ma dhihin dadka ay yidhaahdaa si indhan la'aan ayaad waxaad ku taageerayseen gar iyo gardarraba madaxweynihii hore ee laga guulaystay maxamed cabdullaahi farmaajo aniga shakhsiyan aan aaminsanahay waddankan inuu wax aad u wanaagsan u qabtay ilaa iyo bishii february sanadkii hore marka hadda haddii aad saas u taageeri jirteen ma laga yaabaa in aad indhan la'aan ku taageertaan madaxweyne cusub hadda yimid mise arrimo qabiil baa jira arrimo saaxiibtinimo jira arrimo dhaqaale wax walba waa iska dhici kara laakiin mar dadka saas leh anas maxaa ka dhihi lahayd siyaasi cali daacuun oo dadkaale iyo anaale adigu wanaad kala saartaa anigu wariyana anigu madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo waxa isu kaaya keenay baan rabaa horta maanta adigu inaad ogaatid haye dadkuna ay ogaadaan صح common enemy baanu yeelay cadow isku mid ah baa la helay hal cadow baa la helay axmed madoobe iyo sidi oo soo soconnaa waa cadow bay ku ahayd aniga cadowgaygii bay ahaayeen adiga cali daacuun waxaan arkay iyagoo rasaasta la dhacaya maxamed cabdilaahi صح waxaad ay abuurtay oo aan darsay inay siday iiga gardaran yihiin ay uga gardaran yihiin maxay ku gardarayeen halkaas kama maxay isu kigin suusayd baan basameeyey hangar strike baan basameeyey markii sabta dhibaatooyinkii aan sameeyey yaa igu sameeyey iliidka baa igu sameeyey laakiin axmed madoobe iyo deni shaqo kuwan markaas sabta soo furtay magaalkii iliidka maxamuud saleema iliidka iliidka kablala haddana waa kuu sii weyneynaya kablala xin maxamuud suleymaan intaas horta halkaa wixii annagana dhex maray soomaalina waa og tahay yuukubkuna waa og yahay haddaad doonaysana haddaan ma kuu sheegaya furoom carta xasan abshir baa igu gardarooday yuu ahaa iliidka maxamuud saleema sabab laakiin sabab wuu dhintay sababtu maxay tahay isagaad weydiinaysaa maya de nin dhintay wax lama weydiin kare qofka haddii aad wax ku helayso ama maxamuud suleymaani kaballa qolooyinkaada ay sheegtay why you maxaa tahay anigu dhaxal daarood baan wax ku leeyahay waxaa la qaybsanayaana waa daarood kuraastiisii dhaxalki baa laga dhaqiyay marka intaasaa dagaalku ka bilowday course dhaxalkii daarood waa dhaxalkay war dhaxalka waxbaan ku leeyahay iyo kuma lihin marka enemy of my enemy is my friend adhacday cadowgiis waa saaxiibkayni taas horta waa taa haye maxamed cabdilaahi farmaajo waa taageeray waana kuu sheegay wax kale ma jiraan horta inta isu kaaya keento waa intaa maamulkiisii haddaad wax iga weydiisay aamin buu ahaa aamin buu ahaa aamin oo dhankee aamin buu ahaa dhinaca dhaqaalaha aamin buu ahaa dhinaca wadaniyadda taa iyada nina looga gaban maayo dhanka doorashooyinkana adan iitaa marka waxbaad weydiinaysaa inaad ku dartid iyada lafteeda aamin buu ahaa doorashooyinka oo shanta maxaa yeelay haye wan maan wangood baa annaga habeen badha loo akhriyey haye xasan cali khayraan loo akhriyey haye iyadaanu sugaynay haye goor alla gooray isbeddeshay oo ay teendhada tagtay horta waanu garan weynay marka doorashada waa lagu aaminay sideedabana waxa iska lahaa awoodda oo mar walbaba uu farmaajo ka qaadi waayey baarlamaanka wix alla wixii uu kala soo kulmo maamul goboleedka baarlamaankaasuu u geynayay baarlamaankaasaana sharci dejintii ah oo xaqii ah oo go'aan soo saarayay waxa baarlamaanku soo saarana waa in madaxweynuhu raacaa oo uu yidhaahdaa dee baarlamaankii baa qaraarkaa gaaray aan kaa dhex galo ku darsashadii labada sano bal nooga sheekay haddiiba lagu aamini kara doorasho anigu ku darsasho uma arkayn haye maxaad u arkaysa laakiin adaa ku darsasho u arkay maxaad u arkaysa adiga waxaan u arkayay vacuum inaanu dhicin baarlamaanka maadaama uu ku celiyey suu u dhacay vacuum wuxuu u dhici lahaa vacuumku haddii aan doorashadii wanmaan wowgoodkii la waayey haddii waktigii electionka la qaban lahaana ay
murashaxiintii midowga iyo maamul goboleedyadii iskaashadeen nin geedgeli jiray looma geedgalo aynu muddada ka dhammayno ay taladoodu ahayd baarlamaankii buu ku celiyey baarlamaankaa go-aanka siduu ku dhici karaa adigu in siyaasi rugcadaa baatay suu ku dhici karaa one person one vote haddii loo eego logistic security waddankan xaalkiisa nabadda siday tahay aad og tahay miyaad aaminsantahay waddankan ayaa waxaa ka dhici karta one person one vote oo ahaa qorshihii farmaajo uu la yimid oo markii dambena labada sano lagu darsaday oo baarlamaanka iyaga isla ogaayeen xusuuso xasan cali khayraa soo magacaabday waxaa tiri xasan cali khayraa sidaan laakiin xasan cali khayraa shaqadiisa wuxuu u lumiyey waxay leeyihin markuu yidhi anoo jooga extension 2 sano la samayn maayo maca kadda one man one vote-ka haddeeraan ku siinayaa dokumentkii isaga ayaa annaga noo yeedhiyey farmaajo nooma yeedhin garabkaa waxaa ka fadhiyey cabdixaaji garabkanna waxaa ka fadhiyey ninka la yidhaahdo ra'iisul baarlamaanka dhexdana waxaa fadhiyey madaxweynaha ninka warqadda akhriyayay ee one man one vote-ka noo sheegay farmaajo ma hayn farmaajo waa saxeexay baarlamaankana wuu u gudbiyey labada guddoomiyena way saxeexeen laakiin ninka naadiyey wuxuu ahaa wax laysla ogaa oo waxay ahayd waddanka in 2 sano extension oo lagu darsaday ahayd wayna socon kari weysay dhibaatadana meeshay ka timid أنا مركل أنكو عليه وحنا مثلاً فرماجة وضع كان وحوين وقتي لكن إبكو وحو بلغضي مالين تي لقبان وايه دورة شده فبراير 2021 يقول أحسن كده wax allaale iyo wixii adigu aad qabto iyo wixii aan qabo horta kala saar nigeed geli jirina looma geed galo inta ana aaminsan ku yani adigu waxaad aaminsantahay adigu waxaad aaminsantahay adeeg ku jirtaa anigu insider baan ahay shaqadaydu gawaarina ma iibiyo dhulna ma iibiyo aniga shaqadaydu waa siyaasad document baan hayaa one man one vote kii halkaasaa lagu waayey waa qodob aan ka gudubno ka gudubta midaan kuu sheegayaa ayaamahan dambe videos ayaa soo duubtaa oo aad leedahay on the record ah haddii dicsi ama dicsi qof isu yaqaan ay taabto ama la dilo waxaa ka mas-uula madaxweynaha cusub ee dalka xasan sheekh maxamuud siyaasi cali daacuun oo nin muwaadin ah oo meesha nabad ku jooga danta uu ka leeyahay iyo dilka iyo wuxuu ka doonayo maxay tahay bal noo sheeg maanta xogogaal baadan ahay 13 abril 2014 hotel Jazeera ayaan ka baxay waxaan tagay birta controlka number 4 gaari baa iga daba yimi askar baa iga qabatay inamadii tuutaha gashanaa baa iga reebay muran baa dhacay mustaqbaxulow rag uu ku jiro oo waddada marayay waa qayliga yuusuf xaylaa ka mid ah war maxaa jira waxa ii watabaan iri nimankii mukhaabaraad waadna aragtaa muddo 30 mirin abay xaaladdu ka shaqeeyay waxay ahayd hadday intelligence yihiin oo aqoon leeyihiin inay markiiba isii daayaan oo ay iska tagaan oo ay meel kale iga eegtaan bashiir goob baa soo hadlay taliyihii ayuu la soo hadlay annagaa arrintaa wadanabaadiyey waa leeyahay buundada naasa hablood hoosteedaa leeyahay qorraxdu waxay iigu dhacday saldhigga hodan waxaa lay geeyey meel aanan garanayn indhahaa layga xidhay raggii qaar baa nool qaarna waa dhinteen saldhigga hodana lagu geeyey marka waan dhaafay qorraxdaa igu dhacdaa ku yidhi haye saldhig baa lay geeyey kuma odhan nin saldhig la geeyey waa nin la dacweeyey waxaa lay geeyey meel duur anigu aanan garanay waxaa laysaga dhigay wadaado qaala allahu tacaala maxaa dowladda ridada ah ku daba dhigay oo aad ula socotaa war idinku wadaada miihidin dowladda laakiin lama socon adiga war idinku nim waxay yiraahdeen ma dowladda lama socon hadda logic ma ahan waxay yiraahdeen baan ka hadlaya hold on dowladda ridada maxaa ula socota maba ku dhihi karaan ilaan waxaad ay qof dowladda mar walba ka soo jeedo ay ma khasbaysaa bise waxay yiraahdeen baan kuu sheegay haye noo muranka adaa hadda bilaabay way nool yihiin waxaan ku yidhi saasay yiraahdeen baan ku yidhi miyaa kuu magacaabaa farxaan qaroona ka mid ahaa de weydii ma logic ma aha maxaa kaa galay logikeeda de waa aqoon darro logic dad badan baana de waa aqoon darro haddaanu intelligence-ka aqoon darro yahay
marka dawladda murtidka maxaa ku daba dhigay ee xasan sheekh ujeedadu waxay ahayd inay wadaadda isugu kaysheen oo ay khaarijiyaan laakiin waa fashilantay haye marka xasan sheekh waa soo daba leedahay haye markii dambe waxay yidhaahdeen haye ina gumeediyo laangaabka ay maxaa xasan sheekh eeg ma sugi karaysid adigu tan dambe xaqiiqadii ah tadabadee ka dhacda markaa isla goobta markii hore wadaaday ahay isaga kay dhigeen haye waxaan ku eeri anigu xorriyaad baa dastuurku isiinaya aan ku hadlo magaalada ka baxay muqdisho ka baxbaa lagu waxaan haddaa tegi helo waa ka baxaya safaaradda maraykanka si jiraayad baan qabtay safaaradda maraykanka ay yaadhay wixii oo dhan anigu calaa kulli xaal sidii wixii dhacay baan ka sheekeeyo waan ka hadlay rikood baa iga yahay 8 sana ka soo wareegtay xasan sheekh xukunkii waa ku soo noqday maxaa ku cadeeyay laakiin in xasan sheekh uu ka dambeeyay rag waxa ii cadeeyay isaga waxa ii cadeeyay bashiir waxa ii cadeeyay dadku dhan fadhiyay xasan sheekh ku cadeeyay soo ku cadeeyay ii saamax buu igu yiri ma jirto on the record miya halkaas uu igu yiri ma jirto on the record ma saa ku yiri madaxweynaha ay isaga yiri soo kay maqlaaya maaha adiga murabba adiga waraysi ma doonaysa murabba doonaysa waxa aan ku iraahdo waa taariikh halka gelaysa maya adiga waxaan ka rabaa niman barabti civilized aan u sheekaysan oo xaqiiqa istaji in la dhageystaan waraysigan ana ka socodsada maanta warkaaga in la gudbiyo laakiin anigu I don't believe ma aaminsani xaq ku dhamay 100 jeer baad madax inta ku aragtay hotel jazeera waa soo joognay xasan sheekh ma on record ku yiri caliyow waagi waan ku afduubay walaalow iga raalli ama saa ku yiri xasan sheekh maxamuud ba u sabab ahaa bal khatar la yaan ku yiri u sabab ahaa ma aha in raalli gelin ku siiyay nacam yaa jooga markaa yaa maqaati ah waba diiday ba haddana waa diidanahay inaan maqashay kida xataa idinku yiraahdo raalli ah maya diidmada waxa ka horreeya waska daba fiiri markhaati iyo waxa iska daa madaxweyne aniga ma hafrayo wuu nool yahay madaxweyne qaranka waxa waryaa weeyaysa aniga ma hafrayaan ku yiri waa inuu soo dacweeyo maya madaxweyne qaranka waxa weeyaysa inuu idilo anaa iri hay 8 years ka soo wareegtay waa digniin maadaama taariikhda waxaasi ay dhaceen waa digniin laakiin maxaad oran weysay wali awood waxa markuu lahaa maxaad oran weysay 2017 18 inuu dilo laga yaabo maxaad weysay madaxweyne ma ahay oo marka madaxweyne awood wax ku dilo leeyahay عبد النور السيادي أفطوبي مجرد حسن مجرد كينيا لقى صو أفطوبي مجرد أكفري هداد مرك كنتي علي يرى علي مسوح ابن حسن شيخ لقيسو مدحوينه واحد كلا صار تسيستم ودنك مدحوينها نعمري عبد الله الشيخ الوفدو عبد الله الشيخ علي طاعون احمد داعي علي يرى عبد الوارثي يقف البوصه ما لقى نيروبا لقى صو أفطوبي عبد النور 6 سنه وحبك ما جيران تاس ولا عديه 6 سنه كدي معنا هذا دقيسو 6 سنه كدي معنا موجي افتر 8 years معنا موجي أنا حسب بعض ويدي سيد حسن كنتينا يا حسن كنت افتر 8 years والله معنا ورو ما هي وحي دعي تبدي والأدر وحي آن إني بقول واد دقنين مية ولا كنت جاية واد دقنين صوب حتى لكن واي أود من الحين مو ما جايني يس تاس هذا مثلا أنا إني أنا مثلا أوكي كذا كل شيء مرتا تدخل وحي ليهين ولا شكبط يا أفضل أنا تصالحان حسن على غيران تاجيره واديو إنه مدحين نقول أنا فرماجو حتى أنا ما توحن أمسن هاي وإذا يحكي أنكوا شكله هاي أفرس أنا كذب هدو فرماجو شنو ولا ذكرنا إذن كجروب كينا مرة ما قاعدين هو عمر رباري وكسر إيشا جروب كينا ما الدولة ولا شقيسان وحوجا كريم أسبرين تعطى القلص الصفر ما أنكرنا يسوع شهد واحد يوديس وعن كل مدحويني تلقوا حسشي وحي لقرحي صومالي دو هلا شقيس وكو أماني إذا جيسو الحقيقة هذا هو كله يعني وعن ربا أنت بدل واحد هذا شاب برنامج الحقيقة واحد هذا شانين كله يدخلوا تاني سعيد عبد الله الدني يحمل مذوبي بس انتوا بدو waxay yiraahdaan wadanka qabiil buu ku dhisan yahay farmaajo haduu heshiis la'aan lahaa labada tol ee diin ama daarood oo bas u yaqaano maanta madaxweynuhu aan wadanka qabiil arintaas maxay ku tahay no comment wadi no comment no comment no comment oo hadda waxaaba madaxweynaha ku eedaysay inuu dil rabo hadana waxa ka jawaabi lahayd no comment نو كومنت وحدني يا احمد سمينا يا ودمتها يا محدي ودينا نو كومنت دي فرصه لهدها كجواب نو كومنت اوكي باخذ بينا سعيد عبد الله الدين كيف كلا
وخرات وشكت واحد تري واحد لقيه دي سوق تقسم جو أنت كلا قاعد شيء The all banku the politician elite قبل الله including أحمد مدوبي دحلكي عن طارات كلها وإيد جيدا وين هذا الحكم كلام ممكن دحلك هذا الإيد ورا marka hadduu yimaado kablalax kale hadduu yimaado Who cares? ma la heshiinaysaa mise guli ما يعني وحيجي دحلكي بيبقى كوري ma kablalax وحيجي hadduu yimaado مايا وحيجي وحيجي واحد دحل ملايا وكل يا هرتو وين كان هلا waad helaysaa ما كان دحلك يجي هلا هلا قاعد okay marka haddii aadan helin kablalax dambe heshiis lama aha Who cares طارات darada dambe including you okay waan gartay waa mahadsan tahay nin balaaye ah ayaa waddankan sanaya barka ra'iisul wasaare maxamed xuseen oo la yiraahdo oo dadku ay aaminsan yihiin aniga aan aaminsanahay waddankan inuu badbaadiyey aan ku dhameeyo ha soo boodi inuu badbaadiyey doorasho uu keenay dejiyey dadka waxa leeyahay taalaha loo dhiso waxa loo sameeyo wax walba yaa leeyahay maxamed xuseen rooble adoo marar badan ka hadlayaan sida wararka maanta meesha lagu kala wax allaalayo inta hadda aad ii sheegtay aragtidaadii baad ii sheegtay haddaad adigu ataad aaminsantahay aad ii sheegtay tu ka duwan baan aaminsanahay anoo sheeg qabri buu geliyey soomaaliya qabri buu geliyey intaad adigu sheegtay inteedigu baa sheegay qabri buu geliyey qabri aniga xaggayga hal su'aal ku weydiinaya ku soo raxsanaya xasan cali khariyaad gaari farmaajo oo yiri nin iga fiican baa keenaya maxamed xuseen rooble yaana baranoo keen haye marka waday waaxid yaa waara cibaada kaamil haye awa ciqaabtii farmaajo buu noqday rooble waa lagu ciqaabay waxaan ku weydiiyey hadda waxaad leedahay maxamed xuseen rooble waddankan wax uu qabtay kama yaraan haba ka yaabin sawtan ma aha reexa markii habaarayaan mana reexa mara sawka isaaqi habaarayaan well of course ninka markuu wax qabad leeyahay ninka markuu wax qabad leeyahay allahumma salli wa sallim alayhi qofka markuu wax qabad leeyahay dhegeyso xaqiiqa horta dhegeyso marmayna niman dhegeyso oday haye waxaan ku idhi waxa uu rooble ummaddu ay u habaarayso yaa habaaray yaa habaaray reer xamar haye Soomaaliya mar xamar baa war ma dhamay dhegeyso dhameeyo haye reer xamar waa habaaraya reer waqooyiga qaarkii waa habaaraya haye reer muduga qaarkii waa habaaraya reer jubbaland waa habaarayaan haye aniga ha khasbi maxamed xuseen rooble wuxuu habaarkaa ku mutaystay buu qabaa dee hadduu habaar mutaystay maanta asaa weli sii ah ra'iisul wasaarihii tan kale adigu ma aaminsan tahay dadka reer gedo ee aan ismaqalna waxay leeyihiin farmaajo inuu wax noo qabto iska daaya 16 xildhibaan ee garbahare uu dhaafsiiyey fahad yaasiin xildhibaan ee ilaanihiisii la waayey marka odayga projectigu wadayso kama hadlaan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu yimi baarlamaanka wuxuu yidhi awooddii doorashada iyo nabadgelyadii doorashada ra'iisul wasaaraha ku wareejiyey waa shaqo fiican noqotay iikaadi adigu haddaad abaal dhacday oo ninkii ku magacaabay aad ku kaadiday it's up to you inta waddan qof soo boqortooyo ma ogta anigu waxaan ku waa ku magacaabay inta waddanka boqortooyo waa anaga bala arag waa ku magacaabay gacmaha soo dhigto markaa ku magacaabay haye waxbaan ku magacaabay haye inaad kugu imaado maaha shaqadiisu way ra'iisul wasaaraha war inaad kugu imaado maaha 17 September waxaa lagu heshiiyey 2 meelood garbahaare iyo kismaayo intii kaloo waa la qabtay garbahaare maxaa loo diido waxa loo qaban waayay dhameeyo garbahaare aniga shaqadayda ma axmed wuxuu saxeexay gedo axmed wuxuu saxeexay gedo iyo kismaayo haye warqadii haddana toogsiya garbahaare kismaayo gedo waay gedo loogu qaban waayo waa lagu qabtay haye gedo markaad ka timaado garbahaare baa ku qoran heshiiska 17 September garbahaare waa lagala tegay ceel qalow baa lala tegay ceel waa ceel qalow sababta ma taqaan joog hadda aamus jadi aan hadda dhamaysto ma hadli karaan ani waxba weydiisay haye ceel qalow waa sharci darro sababta ma taqaan maya 17 September bay ka hor imanaysaa hadda 17 September sidii xildhibaankii shaqadayda xildhibaan garbahaare kala ku walay shaqadayda ma 17 September xaaji cali aas dhageysan aniga 17 September boosaaso iyo goro waa lagu yiri ummadii waa lagu qabtay haye waxaa lagu yiri jawhar iyo beledweyne waa lagu qabtay aan ku wada waxaa la yiri baydhaba iyo mar waa lagu qabtay aan ku wada
maxay waday adigu miyaad ila doodaysa bas waad wareysanaysaa haddaad wareysanayso 17 September ma waafaqsana eelwaad haye aan raaciyo markaa horta gedo iyo garbahari ceel oo reextay يا مسلم أنا واحد كل 17 سبتمبر واحد كل بقاطع سؤال كده 17 سبتمبر اللي قبل ما يا عدا كيرش عدا كيرش انت كتر سنتين عدا كيرش انت كتر سنتين لما أورد بلد حاول لما أورد بعض واي يمكن يستغل الكعبة ويدير واي وحي رادين قال فهذا اسمع سببته محيط المكان هذا انا كل شيء ما هي شيء وين الدوليسه الدود ما هي الدودين هذيك بوينت يا واشنطن حاج علي هاي بوينت وليتها هي الدود ما بوينت هي شيء ما هي شيء سببته هالشيء وليتها ورئيسنا اساسا لكن وانا نصير راعيه هنا نصير راعيه وحد يقول هذا السؤال هذا لا دوديسو وعرين كله waxaan ku iri 17 September waa la soo dhameeyay goob doorashadii labada meelood شوي والله أحمد واحد هاي تقدمه قرب هاري سويت متقن متى هذا القدوم كوري قرب هاري واللي بعد سويت متقن ودقي هدو وقدقي واي وان اوغا هاي وقدقي واي شيغنا مايو واي هاي قوتها هو اسغا ويدي واي اسغا ويدي هاي اسغا ويدي اسغا ويدي معقول متي اسغا ويدي ايوه قد بينا ضد بدنا داوناي هذا وما سنتين waxay la jooga maanta legendary حاجي علي داعون الحقيقة يا إلى جوجا إن علوس أديرك أدوى من سنة إنك سطوته يا ما هو كشكل وحن مقالني وأن أرجنا حسن الشيخ إنه كاني ستاف ومدحتويد وأكفر قدم ضدك هذا الله هي ضدك شخص كم اللي هندوك ولا بدنا واحد ليهين ضد كاني ماشي كمان أرجنا أريد شيء وأرجنا ها وحقات يديريسا وحقات أيه وحق مدحتويدا كيري وشقديسي هديت اغاسميه سيدي هديت هيدا تليسي امنيا هديت هيدا تليفونك ودي ملايين هديت وحاسو شقديسي عدو هو كان سكر والله الهي وحنا بريمو ولا اللي هو ذاك ينصدر صح كلام حكامي سنتها صوابو كل شيء يوم شقديسي وقوليه وحو امن سنه وحي وشقو قبل لها كي تليفونك ودي بلها هدو يرا كلام امنيا ميان كو قبصدا waxaan nagu maqaala ayaamahan soo socda in la yiri Saciid Cabdullaahi Deni ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya loo soo wadaa Xasan Sheekh ma soo shaqeeyeen wasaaradahan wasiir buu u noqday marka ninkan waa nin khibrad leh oo Puntland ka soo shaqeeyay waddanka soo shaqeeyay waranka adiga lacagta doore علي كتاب نسيت الدولة كنت أقول لعبت الدولة أنت صح كم قلت بين لعبت الدولة رئيس وزراء عصر من كانوا اللي يرأوا على عيد اللي لما دحوينا جينكا قلموا أهنا عمارة الآد اسمه اللي دحوينها نوال الصوت هذا اللي يدي ودهير كاس كل شيء غير مدحوين فرماجة كل شيء خاص وماشي كب حنيسة مدحوينها وقبيليس غير كاس وعسكر بحنيسة شيء كل الطهينين اللي يرأوا غير عمود وقتلنا في السنة وسوية وين نسيني الدولة يا فكانوا waxaan arkay xafladaha madaxweynaha lagu soo dhaweeyo aad lagu hadalay arna sawara ومحل هيك هذا ninkan cali daacun la dhahay dawlad naciibka dawladda cusub uu naciyaha la diiday dawlad kudoo baad qabiil badbadiye shacab dawladda dhibcaada okay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan maqalnay in markii uu ka soo baxay dilada la yiri guri baa loo iibinayaa madaxweynaha ma lacag la'aan haysa mise lacag baad ururinaysaa qoladina taageeraysa su'aal aad xaq u leedahay baa haddii Soomaali ay farmaajo aqal u dhisayso iyaga lacagtooda leh waada arkay maalin dawad aad lahayd khoroblada loo dhiso aqal waa ku arkay hadda maxaa macna loo dhiso oo digay aniga shaqadayda maaha ummadii hindistay fikradda adi ma kamid ahayd ummadii hindistay adi ma kamid ahayd ummadii fikradda lahayd adi ma kamid ahayd ummadii fikradda lahayd bay u taalaa adi ma ku jirtaa fikrad ma lahayd lacag ma bixinaysaa hadii lacag loo imsa bixinaysaa rabbi ilaahay gato ama kafta okay waxa dadka qaarkood ay yiraahdaan ma aaminsani kuturi kutaan waxay aaminsan yihiin in lacagta ugu yar ee bil walba lagu siin jiray ee $20,000 arintaas ma waxa xaqiiqo ka tirsan dawladda maxaa $20,000 jasiira baa laga bixiyaa oo ka bixin jiraa baa la yiraahdaa in xad ka hadlaysa ma jirto arintaas farmaajo lacag ma bixiyo he doesn't pay any money ma haye
farmaajo lacag hadduu cid siinayo anuu isiin lahaa aabbahay oo dhintay baan ka waayay oo wallaahiya ما I believe you هذا شو oo wallaahiya صح. oo wallaahiya waa saddex goor baa ku dhaafay صح اوكي هذا يلا جعلان لهيد ان رزقك كنا no comment. no what do you mean no comment ما لقيا 4 years time صاحبك محمد الله محمد فرماجو ان شاء الله لا يعلم الغيب الا الله والحقاد وتوتر جيريسا تي الهي باد marka tii adduunka ka tagtay Adduun la yiraahdo. tii ilaahay bad ka tagtay Adduun la yiraahdo. hadda ku soo noqotay Adduun la yiraahdo. Allah yaclam dadka intooda badan waxay leeyihiin Allah yaclam kaga bax waxaa ka soo jeeda Soomaaliya dadka intooda badan waxay yiraahdaan waqtiga lagu xukmaan lahaa waqtigii reer Soomaaliland ee waddanka reer Wasaaraha ka yahay arrintaas waxaa ka dhigay ina lafteedu waxaad weydiinaysaa haddii ana yahay gacan ilaahay ku xiran صح haddana nin jeerkii ra-iisul wasaaruhu ugu jiro arrinkaa waxaad weydiisaa oo aad ka dhaadhicisaa xasan sheekh maxamuud madaxweyne oo waxaad tidhaahdaa reer waqooyisii ra-iisul wasaaraha ciday doontaa kuwa soo sanaag dega kuwa dega who cares reer waqooyi jumla mufiida weeye waa reer waqooyi sii ku dheer tale u gudbi dadka intooda badan waxay yiraahdaan nin waxaa tahay dastuuri ah dastuurka aad maaragtay u aqriya sharciyada la jiray soo bandhiga waxyaalo badan sameeya xildhibaanada hadda la doortay dadka qaarkood waxay ku tilmaameen aniga ma dhihin one of the worst kuwii ugu liitay aniga ma dhihin dad baan ka maqlay oo social media adigu maxaad ka aamistay xildhibaanada hadda la doortay labada no comment waxyaalo baa ka hadashay no comment maba aanay fadhiisanayn way fadhiisteen weliba fadhiisto way fadhiisteen baarlamaan fadhiistay ma jiro adeer waxaad ka soo hadashay gurmadka gargaar abaaraha oo cabdiraxmaan shukur loo doortay oo aad tiri waa in uu xildhibaanimada iska casilaa laakiin waxaa la yidhi qaab tabarrac oo volunteer ku shaqeeya arrintaas ma ka laabatay mas-uul aadan saddex dastuurku tabarrac kuma jiro sidiisaba tabarracba kuma jiro dastuurka hay-adaha la yidhaahdo hilaal al-axmar volunteer bay dadka ku shaqaalaysiiyaan صح marka dambena way qortaan waa hilaal al-axmar waa bisha cas صح annaga dastuurkan volunteer uu ku qoran yahay ma jiro waxaa xildhibaanka loo magacaabi karaa golo wasiir wixii dhaafsiisan bay yidhaahdeen automatic walba otomaatikana xubintii buu luminaya intaa weeye inta ku qoran haddii meel kale ay wax kaga qoran yihiin ii sheegi doonaa okay ugu dambeyn salaadii casar baa la soo Ya hala. eedaanka ee soo socda horta aad u mahadsan tahay Soomaaliya sii joogaysaa mise waxaa laga yaabaa dooxa ama asmara meelahaas inaad aado oo meelaan ma aqaanin meel kale aan Soomaaliya aan muqdisho ahay weliba aan Muqdisho aan muqdisho ahayn madaxweynaha cusub inaad la kulantid oo isxabisaan oo waddanka aad u shaqaysid ma laga yaabaa inaad aniga iguma xidhna isagay ku xidhan tahay الحقيقة هذا أمر سنتهاي ahlan wasahlan من أنا أدو قيمية وشرف له لكن مركز قاركود دولة أن تاجرنا very important مدحوين عصب أن تاجرنا دولة أن تاجرنا ekfiri dowladda aan taageero iyo madaxweyne aan taageero laba mawduuc bay ما kala من yihiin دولة أن تاجرنا dowladda aan taageerno waa sax يا مدحوين أن تاجرنا horta dowladda aan taageer dowladda madaxweynaha ma weyn adaa wax ku weydiinaya دولة وين مدحوين soo dowladda ma weyna dowladda waa kula taageera مدحوين هنا hala gaadho محل قرم حلوة في اليابان war hala gaadho baan ku yidhi waxaan ka iloobay oo maanta doorasho ka socota South West doorasho ka socota qofka gareena group inuu ahaa oo nabadii nolol marka ka waran jaaniskiisa ma garanayo su-aasha weydiisay no comment ma fahmin wixii aanan fahmin ma oo kugu fahmin celinaya ay gu celin lafta gareen wuxuu ahaa guruurka farmaajo iyo asxaabta isaga iyo qoorqoor iyo doorasho ku socota bisha December jaaniskiisa ka war hala gaadho marka la gaaro إن شاء الله لنا. وحل قاعدين بدي بس هذه السياسة ويدينيسا waa ka hadashay وحول قاعدين بدي ويدينيسا وقصدي ميادة الإسلام معين waxaan maqlay كوفية ده نسكتوا وراني قاعدين waxaan kaloon maqlay in Axmed Karaash iyo Deni heshiin aad uga xumaataan waasaa joogta وحالي قدت الشيء اه عائقوا وتك عمر شغل kama xumaan بينك وشيء ورمحي إيه الشيء ورمحي wax walba dira ka وحاصل دمي وواحد يفوق ومر الحقيقة وما سنتين أصحاب قيمة هي قيالة إن لسعتي وأديركي قالوا جدان سياسي علي الداعون وأنا الليجندا أنا كنت أذن وأمي سنة هاي وحن لنا هاي الحقيقة نوصل مع أصحابتي السقي علي السقي ما وين هي وما سنتين